markuu airportka keenayna waxay noqotay inuu maaragtay si fiican wajigayga u fiirin waayo isagoo hoos fiirinayo ilantana ka socota uu igu yiri ogow Aamina maalin maalmaha ka mid ah waxaan waa adduunka nin laba shilin haysta iga raacday berri anigoo shaqaysto ninka la mid ah ama ka sareeyo ay arki doontaa qisadani waa dhab waxaana inala wadaagtay Aamino oo ku nool wadan ka mid ah dalalka qaaradan Yurub waxay tiri waxaan ugu talagalay qisadan inay wax ku qaataan dhalinyarada maanta ugu horeen waad mahadsantihiin bay tiri bahda ayaha nolosha TV xushmad badan ayaan idin hayaa mahadsanid walaal waxay ahayd bay tiri sanadkii 1993 waxaan ahaa markaa gabar soo hana qaaday waan ka qaxnay Soomaaliya dagaalo iyo rasaas ayaa dhan kasta ka holcayay tahriib dheer kadibna waxaan nabad ku tagay bay tiri wadan aan bad u sii maray dad badan ayaa inaga dhintay wuxuu ahaa runtii safar argagax badan muddo markaan joogay ayaanu wiil iska baranay magaaladii ugu horeysay ee aan tagay goobtuna waa xeryo qaxooti si aad ah ayuuna ii soo dhaweeyay ina caawiyay jacayl ayaana ina dhaxmaray wiilkii aad ayaanu isku dhaxgalnay bay tiri waxaynu noqonay lamaano xiriir jacayl ee aad u qurux badan wada gardaadshay xitaa intaynu wada soconay dhowr mar ayuu fursado dhanka dibadda ah helay bay tiri laakiin isagoo diidan inuu aniga iga dheeraado ayuu baajiyay sanad kadib qoyskeygii ayaa nin iga soo doontay bay tiri ninkaasoo wadan kale barwaaqo iyo shaqo ku haystay waxaan u sheegay inaan rabin ninkaas balse qoyska dhibaatooyin badan iyo qax iyo duruufihii wadanka ayaa haystay waxayna ii sheegeen in ninkaasi uu caawiyay in badan isla markaana uu qoyska yahay oo qaraabo ayaanu ahayn arintii waxaan u sheegay bay tiri jacaylkeygii aad ayuuna uga naxay meesha aan joogna waa qaxooti midkeen awood ma leh xaaladii ayaana inagu adkaatay aniga laba quwadood oo waaweyn ayaan ku dhaxaftay dhan waa cadaadis waalidkay iiga imaanayay dhanna waa jacaylkii aan u qabay wiilkan aynu xeryaha qaxootiga isku baranay intaa kadib wiilkii aad ayuu uga xumaaday wuxuu ii sheegay bay tiri inaan isla tahriibno nolol iyo geeri balse daruufta faamilka iyo noloshii tahriibka ayaan dhibsaday waxaana go'aansaday bay tiri in ninka ladan aan ogolaado isagana saas ayaan u sheegay oohin ciil iyo xanaaq badan kadibna wuxuu ii sheegay inuu i fasaxay isagoo waliba i jecel waatan Aamina oo ka sheekeynaysa xasuusteedii jacayl ee 22 sano ka hor magacaygu waa Aamina waxaan ku noolahay wadamada Yurub wadan ka mid ah waxa aan aad ugu mahadcelinayaa ayaha nolosha TV oo aan maaragtay fursad ii siiyay in aan kala qayb qaato ama aan maaragtay la sheer gareeyo qisadayda oo aan isleeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku maaragtay in ku cibro qaadan doonta waxaa jirtay 1993 ayaan maaragtay Soomaaliya dhibaatada ka jirtay aan ka soo qaxnay marka aniga dad qaraabo oo kale aan nahay ayaan maaragtay la soo qaxay oo markaas xaalad aad u xumeed marka wadan maaragta aan hadda sheegin laakiin wadamada dariska ah xeryaha qaxootiga ayaan soo galnay muddo yani aan badan jidka ku soo jirnay marka xeryaha qaxootiga soo galnay meeshii waxa iiga soo horeeyay dad badan oo Soomaaliya joogay meeshii adii muddo markaan joognay barigaas Soomaalida dad badan uma maqleen ama maaragta sida hadda qof kasta oo maaragta meel qaxootiga timaada ay daday wacatay iyo wax u helaysa awal ma jirin marka waxaan sameeyay meesha waa iska joognay meel aan u soconay ma garanaynin waa runtii qabeeyo oo wacdi dhibaato baan ka soo qaxay meesha anagoo iska joogna ayaa waxa dhacday waxaan isbaranay wiil Soomaaliyeed ayaan isbaranay marka wiilkii markaan isbaranay sheekana dhexmartay jacayl aad u weyn ana dhexmaray runtii meeshana waa fahmi kartaa waxay ahayd meel qaxooti ah oo maaragta iska dhib badan يعني أدو أساء دامي ومركع وحيد أساء وحيستي ولا إيو ضد معركة تعاونها إيو هري وطن كنتو نبضعها وضحي مركع أنا ابن ما هيسنين عد عن مانت قبل آلي الرمان أحاوس وضحيسة مركع إن عد عن وعضو عن تليف وطل ما هيسنين ويلكي مركع إن غير كيسا سود بيلي جري
anigana maanta dadkii faamilkii aan la socdaa la noolaa bes waxaa dhacday marka muddo ambaar markii sheeko naga dhexaysay waa fahmi kartaan jacayl kasta ama wiilii gabar kastoo isbarta xumaan haddii aanay meesha jirin oo jacayl dhab ah uu jiro waxaa imaanaysa in la isguursado amaba go-aan lagu gaaro wiilkii guur iyo maaragtay waxyaaba saasuu iisoo bandhigay bas waxaan ku iri marka intii wadankan xoogaa rajo ka lahaaba inuu isbedelayo ama Soomaaliya isbedelayso kaleeto aan iska sugnay iyo waxaas raaciray marka uu xoogaa waa ka adkaaday waxaan markii dambe ku qanciyay in maaragtaa labadeenaba aan laba qaawan isma qaada aan nahay oo aan waxba isku qaban karin asaga markii dambe wuu igu ogolaaday waxaan iri meeshaan dhibaatadeeda haddaan iska guursano caruur ku dhalno adigana cid ku caawinaysa ma jirto ama cid caawinaysa ma jirto marka dhibaatadeeda ee bilaa wadanka noo hagaagaa rajo aad u weynaan qabda markaa dagaaladaba 3 sano kaliya socdeen bas adoo sheekadii sidaa markay ahayd wuu iga ogolaaday wiilkii wuxuu yiri waaya waa isugeynaa bal aniga reerkooda iyadoo ku dhoofinayna xoogaa leen markaa leemanka way sahlanaayeen qaxootiga waa la iska qaadi jiray anna waa ka rajays karaysnaa meesha marka asaga yaa la yiri adaan kuu soo hornay leen ah maxay ahayd oo kaliga ayaan kuu soo helnay waxba lama ogeyn inuu maanta meesha jacayl wax ka jiro uu ku dhaga adeego wuxuu yiri aniga qofaan wataa qofkayga marka waa iska fahmi kartaa qof qurba jooga maaragta inuu laba qof soo jiido waa iska xoogaa dhib badnaa xiriyaanada ama naagi waxbaa noo keentay adiga yaa ma kula tacaalinay xoogaa isku xanaaqeenin yani adag iska dhigayo wuxuu yiri aniga haddaan qofkaan wata layga ogoleen meelaa uga taga ma lahan adiga almuhiim waa iskaga joogay go-aan waxaan ku gaarnaa isagaa marka xoogaa yaroo lacag loo soo diray kusoo dubaraada yiri ama qof ku kaxayso ama iska dhaaf annaga haddaadan raacin kuma imaanayno tigidna iskama soo khasaarinayno marka wixii isla tahriibno oo aan isla baxno xoogaa tahriibtii aan soo maray iyo dhibkii ay u adkaaday waxaan tahriib dambe ma galaayo way dhib badan tahay hadda ilaahay soo badbaadiyey oo og tahay dariiqaan soo marnay gabdhaha lagu kufsan jiray ilaahay iga soo badbaadiyey maanta haddana mid kale ma galaayo adigana waa laygu ka hordilaya meeshuna waa dhib badan tahay marka raaliya ahaanaysa ayaa ereo maaragta ilaahan ku sugaynaa meesheena iska joogaynaa sidii yaa marka jacayl nooga dhexeeyey aduu markaan muddo 2 sano ku dhawaad aan joognay ayaa meeshii waxaa dhacday faamilkii aan xiriiri jirnay hooyaa markaa waxay igu tiri nin maaleerna iga soo kaa doontay oo waa kaasaayo ninkaas wuu dhaqan yahay oo sideeda kaluba noo caawiyey dhibaato badan aan soo marnay marka maanta lama diidi karno oo adla guura u joogtaa qalaad hadda kadib waa weynaatay marka ninkaa guurso waa fakar runtii dhulka iyo cirka igu soo yaraaday yacni waxaan dareemay inaan aqoonin oo markaan Soomaaliya joogo aad gabar yar aad u yar ahaa waxaa nin weyn oo ahay oo ka shaqaysan jiray dhulalkaas maaragta wadamo maaragta ka mid ah kuley aan Yurub ahayn laakiin nin dhaqan u ahaa wadamada dariska ninkii marka waa uu leegu qalqaaliyey reerkiina waxaa ku batay damacooda batay oo waa iska fahmi kartaa waa la caawiyey gabaraan walaalanahay meesha maaragta wax loo qabtay oo business iyo wax samaysatay adigu sheekadii waxay isugu soo biishootay af wax ma hesho anaga waxaan ku hadalna ma naqaano ka soo kaa doonay meeshana waa laga saaraa dhibaatadeeda maalin kasta ka cabaadaysid iskaga soo tag kiisa lagu soo diray wax kasta lagu soo diray iskaga soo tag wiilkii aan isjeclaan oo mid waa u sheegay qisadii runtii aad u naxay aniga xitaa midaan ka warwareegayna u sheego aad u naxay wuxuu haddaba waan iska baxaynaa awal adaad diiday hadda aan cararno waxaan iri inkaar aan waalidkay kama galabsan karo waa ka baqayaa berri haddii dhibaato igu dhacdo ama maaragta يعني waxay ku dhacaan noloshayda ma saamaxayo marka yani waxaan sameeyo ma aqaan ogtahay inaan ku jecelahay maxaan sameeyaa runtii aniga laftarkeyga meesha duruufa ka jirta wixii asaga loo soo dhiibay iyo reero faamil kaliya aan nahay waxba kale aan isku ahayn amarta wax la cuni jiray marka aniga iskuma filni waxay sare marka ama kaliya isku filnaatay oo naad maaragta ونوال الكرسي مال مكتب مسؤول ليها مقطعني كان حقوق في المأساة والتلفون وترسلها وحلوه وصدرها مرك أنا كم عرم وما ركتي إلهي باقبتاج عين كاغنا أدو دمع الدنيا وبعنا إسكاك قاضي دمع إيه ولا سوتجي وحاول شيء مرك رمتي لبهد إنه كالعريسان همين كي دنبوي كحيمل إيكي وحيقول مكعبة مع تسمى كوب حيسا هاي على وحن سمعي مع قانون الدنيا دي على فلوس كلها ولا يسهلها يا مركا وحن سمعي مع قانون ظروف الدنيا دي رجع الله عبدك كاسكاني هذا ما تسكو في النار لحين
cidna ima kaa diideen runtii qisa yani meesha waxaa ku jirtay oo aada uga xumaaday oo runtii marka aan sheegayo xitaa yani ma jeclaysana inaan ka sheekeeyo laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarada kaa dambaysa jiilka dambe kuwaana qaateen wiilka laba qabiilan kale ahayn marka xoogaa waa la diidanaa waa iska garanaya jiraal ahaana u fahmaya soomaalida inaanay ogoleyn yani oo qabiilada laga tiro badan yahay ama ay ku tilmaamaan sida haddaba loo yaqaano 4.5ka dadka 0.5ka ku sheegaan ahaa marka ana waxa iima muuqan runtii dad aad u yarna waa ahayn isaga wax yar iga weynaa adii waa fikir waxa kullee hadda lagu dabageli doonaa lagu dhibi doonaa lagu dhibaateyn doonaa laguma ogolaan doono marka axsan ninka hadda lagu ogol yahay iska guurso runtiina waa jeclaa qof aad u jecel uu ahaa waan jeclaan lahaa in ammaanna la siiyo oo maaragta dhaqanka Soomaalida wax ka bedelaan oo maaragta dadkaas muslimka ah oo aan يعني إسلام لماذا يسمى لماذا ولادهم إيه وكلها وجعلها على كوي دعي ويسي إن دعي نوان أوجا إلا حتى لو تعصعتا فلا لو تنسنا كسوري تكبر ولو يسعتا كما أقعنوا سي يعني أنا أروح حسنا وايد أنا أفكر هبينا أنا كنت ذيك أنا أفكر جري كذب نقع روح نقع قاعدين نسكت ورسلها هذا على كلها أنا ومركز أما هلا يصفروا أما وين هذا هذا طونه حكومة كرامة أنا Soomaaliya joogin iyo meel maaragta wax lagu kala saara asili doona waxyaabaha ammaaniyada kaliya adoo iska aamusay xogaa uu niyad xumaada laakiin raganimo ninka ragga waxa lagu yaqaanaa inuusan maaragtay dumarka uusan ka daba qaadin maanta awood uu soo sheegan runtii raganimo sameeyay meesha uu iga soo horeeyay aqoon badan oo lahaa luqadda waddanka looga hadlayo uu yaqaanay يعني مركي في سي وحي لي سو دiro waraqaasada ay soo dhameeyay runtii raganimo aan weliga ilaaw karin tusay yani wuxuu yiri wixii calafka dhamaad saasay way kaabaan waxaan sameeyay ma aqaan almuhim yani wiilkii dantu waxay ka ligtay inuu sad oo airport keeno oo soo qaaday airport keena oo aad uga fogaaway meeshaan deganay wixii dhan way soo dhamaadeen markuu airport keenayna waxay noqotay inuu maaragtay سفي عن وجهي وفيرون وهي أسمع غاص فيرون على إلا أنت نقصعته ويوير أوه عمنا معلومة كملة وحوا الدنيا لأن لما شلنا حيستعير علي بري أنا وشقيستون كلام من عم كسر أي أركض متى وأسكت فلان أرمى الناس عن الكحل أبى جوا عملت تكوس وقاوية أبي وحي وقاوية كلية تقانا ورالو اللي جد دمرك إنك تبكي حيستعير عن يعني وأنا عبد حيمان تجعل كأي شيء إنسان بنتي بقول كل سديت ما أمسنا هنا يشعشها لكن وحكا وينك وحيستعين أما قبيلة لنكيسك حيستعيو اسمه كورسن كرنيه وحاسة قبطانية أما محايا تطروفها ريرك على العاوي ولا لها أيها قبطايو سلادة يعني وأبغى أنا ما عرفت نفتها الأولى بسنين هذا الأقوال لكن حنكون رجعنا يعني رفيع أنا وقتي جالس كسبت وأنا كنت جعلان دونا رنتي لما مش كان كريلني بدنا كسعتي أنا مرة فعها ولقي ديار مرة وعبسنا سجعت الماما يملها وقرئ في لنا مركي عند على ربارك الواسكسوبح afar bil kadib guurkii Aamina wiilkii aadka u jeclaa uu isaga tahriibay magaaladii ay isku barteen Aamina marba haduu waayay jecelkiisii haddaba 19 sano kadib guurkii Aamina maxaa dhacay waatan Aamina mar kale adi saddex caruur oo dhalay ninkii aad u bahdilay ugu faamilka ahaa aad u bahdilay aad u xumeeyay caruurtii ugu bahdilay waa kala tagnay waa adkaysan waayay yani عروتي وبيلون وايد دبعته وحبنا أيوة دعي وفكر مركي دم واحد رماشة فائدة ملاحن فاهم الكنا وبيست عروتي إن وأنا مسك الصبح رنتي وحصاك العافية أنا أول صبحين أيوة نمر كي صاحلي إن ملواتن سنة مسسجالي تمن سنة ما كل هذا مقياس كرو بوك مسوق رمش كذا ووحني إلى النول مركا كل مدة دارئت ayaa maaragta aan oo ila soo hadlay waa filan waa hebel aan markuu uu yiri waa qiracna waxa xagga iga soo baxday ka soo noolaatay waan naxay markantii waa aad u ilmeey waxaan xasuus telefoonkan dambiyo oo ku soo celinaya ma ku celiyay mar kale wuxuu iskariga ana ku soo wacay oo soo wacay
wuxuu igu yiri maxaa dhacay waxaan runtii waxba xasuustay wax kalena iguma soo dhicin kalmadii ay lahayd maanta maalin ay ka liidato oo sida ninka meesha kaaga qaaday oo kale ay iga baahan tahay inaan kaaga qaado ayaa iman doonta tii aan xasuusto oo iska ilaawi yiri waxa nin raga ah ninka ragana ilmo u baan laga soo jiidin wax kasta uu soo maraa aniga wali sidii aan ku jecel waanan ku sheegay marka maalinta aan airport ka soo baxay wuxuu ii raaciyay xitaa hadaad يعني لحظة جر نقطة حتى يعني كم دافعه حسدين يعني وقت هو لما هذا وقتنا ما تجي أنا مرة بيجمع وين يعني مركا وحي أنا حسوس تعرف أنت شان كل هذا ما أقانه المهم سكور المدير سيفتح الروح ما الشيء سيده حالة هذا حتى عن مقلي ضد أنا يرى سنة قانع عن شيكة ويسكو كامل أنا ما مدعى فاستحكوا جوا سبرامي ضد كان ولا شيكة سمي qaarku yaqaanay arkay iyo qaar isla naqaanay labadeena hebel ay ka sheego numbarka siiyay oo sheekada iga dhacay haddana ii dhameystir muhiim waxa waaskii qof dumar ahay inaa xoog isku sii bahdilo xalqa kala dhamaaday caruurtina yani waa waday Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan hadda baxo iska bax oo yiri meeshii aad tagtana waan kuugu imaanayo almuhiim inaan anoo sheekada soo koobay macnaheedana aan rabo inaan uga dhaco dhalinyarada ama maagta ummadda Soomaaliyeed almuhiim waan soo baxay meeshii aan imid iga soo kaxeey meeshii aan hadda joogo ayuu igu soo caawiyay lacag aad u badan iyo qarash aad u badan igu soo bixiyay oo keenay runtii sidii oo kale iguma fududaan ima dhiin horaan kaan guursan iyo xujo wuxuu igu yiri raaxadaada qaado maadaama carruurta ka maqan tahay ku yimaadaan muddo igu qaadatay carruurtii waa la ii keenay carruurta marka la ii keenay haddana xiriirku socon jiray ii soo bandhigay yani waxaan ku hadlaan garan waaye waa ninkan jeclaa oo aan moodid hadda inuu ka sii qurux badnaado sidii hore waa la weynaaday aniga waan weynaaday asaga wuu weynaaday waa muddo dheer laakiin haddana waxaa moodaa indhahayga inuu ka sii qurux badnaaday nin maaragtaa isku filan oo shaqaysta oo maaragtaa laakiin dhibka jira waxa waaye xaas uu leeyahay caruur uu leeyahay waxa aad ugu fakaray marka aan ku iri kolley dad yani qurbaha Yurub waliba ku nool kaama yeelaysay maxaa sameynaysaa sidee u guursan kartaa yani anoo haddaan ku dhaafoon ka ilaawo waan nabcaan jirin inaan qabo laakiin adin maxaa sameynaysaa wuxuu aan xaaskayga ana aqaan sidaan uga dhamaysanayo almuhiim Allahu aclam wuxuu u soo sheegay asagii gabadhii oo isla socdaayeen waa yani gabadhii baa runtii waxay ugu noqotay wax yani surprise ugu noqotay waa wada hadalnay gabadhi raali ka noqotay ilaa iyo haddana sidii aan ku wada noolnahay oo isku wadan ma joogno laakiin wuu ii yimaadaa marna wuu baxaa marna wuu yimaadaa reerka xiriir aan leenahay maasha Allah يعني آدي ماركتا في عناي وإلا يهدنا واحد مدة مالنتي عن برتي حروين حريق حدود بجري إلا أي حتى إنه سدي إنه كبر يعني معنا إنه كسر دقن أو قلبك ولي بلا يرك هي قلبك ولي وجعل كيسي كوضو قلبك يعني أنا هي دم بدري معي sometime أو سلين كاسة أو حميس هدا أوغان لهيد ugu dambeyn Aamina oo ah hooyo ilmaheeda ku korsanaysa qaaradda Yurub muddo dheer kadibna la midowday jaceelkeedii ayaa dhalinyarada waxa ay kaga digtay inay danta iyo duruufta ku nacaan qofka iyadoo qormadeeda ku soo gabagabaysay ma wanaagsana duruuftana loogama tago jaceelka sababtoo ah ma hubtid meeshaad u socoto iyo waxaad kala kulmi doonto